maalin maalmaha ka mid a markaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo gurigii Xafsa markaa muraad u yeesho soo galay ayuu Cumarna eeganayo markaa buu ka soo dabagalay markaa buu yaa rasuulallah baad furtay buu xaasaskaagan ma furin buu yiri maxaa soo kordhay noo sheegtay wixii jiraan xallinay adduunyay ku weydiisteen Cumar uu ogyahay in adduunya ay weydiisteen intiisa uu sheegtay markaa buu nabigu haa moor nabigu u aamusay markaas Cumar ibn Khadaab baa yidhi aniga islaanta hiblaayo hadday adduunya ay weydiiso qori intuu qaadan dhunta ka gelin buu ku yidhi markaasuu nabigu qoslo wuxuu yidhi anigaba Xafsa iyo kuwa lamidii adduunya ay weydiisanayaan bal u sheeg buu yidhi yakana bal u sheeg buu u sheeg lana markaasuu nabigu qoslay calayhi salaatu wasalaam way ka soo baxeen isagii Cumar markaa masaajidkii bay soo galeen aayaadkan markaa ku yaala suuratul ahzaab ee leeyahay aayatut takhyiir aayaadka kala doorbidashada ayaa ilaahay markaa nabiga ku soo dajiyay yaa ayuha nabiyyu qul li azwaajika in kuntunna turidna alxayaata ad-dunya wa ziinataha fata'aalayni umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-daara al-aakhirah فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما آياتها سان نبيك مركا دوشيسا كسو دغاي لليهي حاسسكاغا waxaad ku tiraadaan ku tira adduunyadi iyo ziinadeedi iyo dhalaalkayga doorta waa oo dhinaca kalena waxa la dhigay ilaahay iyo rasuulkiisi iyo jannadii aakhiradii baa la dhigay labada kala doorta ku dhabal lagu yiri warka waaba loo soo gaabiyayba waayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uguma talagelin inuu ka fikiro adduunyo waa shakhsi loogu talagalay dadka badbaadadooda inuu ka fikiro iyo naxariistooda iyo hidaayadooda iyo iimaankooda inuu ka fikiro weeyaan